habeen madow ay guriga ka guurtay dabadeedna subaxdii markaan wacay oo gurigii oo cidla aan imid ayaa waxay tiri waad dhimanaysaa xanuunkaas waxa weeye anigu waxa weeye inta aan kula rabay waad gaartay waxa weeye xanuun baa wax noocaas oo tiro badan oo aad u tiro badan xanuunna may sheegin waxay tiri waa sumaysanta waad dhimanaysaa ereyadaas ay isticmaashay horta waxa weeye iyada afkeeda iga sheegtay inaan macnaha waxay tiri xogaa aan iyadoo dhaqdhaqaaq samaynayso anoo markaa soo xanuunsaday waan arko waxaan ku yiri ma gurigaada joogtay waxaan hadallaan ku yiri habeen madow ay guriga ka guurtay dabadeedna subaxdii markaan wacay oo gurigii oo cidla aan imid ayaa waxay tiri waad dhimanaysaa xanuunkaas waxa weeye anigu waxa weeye inta aan kula rabay waad gaartay waxa weeye xanuun baa wax noocaas oo tiro badan oo aad u tiro badan xanuunna may sheegin waxay tiri waa sumaysanta waad dhimanaysaa ereyadaas ay isticmaashay marka ereyada markay isticmaashay anigu marka ma fahmin waxaan u qaatay in waxyaabo kale ay jiraan oo amni xumo xaggeeda ah baan u baqay markaa uma baqin markaas macnaha meesha heerka waxaan u hadlay waxaa ka mid ah aqoon darrada iga haysatay bahalka marka waxaa dhacday waxaan idhi nin ila socday oo magacaabay cadceed la yidhahdo oday nin wanaagsan ah ayaa wuxuu yiri amay AIDS qabtay anigu HIV AIDS ma kala naqaan mogta waxa AIDS kan dhagta ka maqli jirnay mogta marka amay AIDS qabtay saaniyo xanuun u eg baa haya sidii la sheegay xanuun baa iska kahay warkeeda waa sax anigu waxaan arkay rag badan baan idiniyo meesha nagee waa ka baqaynaa iyo hatta kuwa laga helay waxaan ogahay bil noolaa bil maxadinti meesha laga qaaday nin soconayaan soo kaxay nin la qaaday hadana geeyay meesha ka qaado bil buu noolaa la hadal wax kasta ku samee qof wuxuu ku leeyahay inaan dhintaan jecel nafta kaga tagaysa marka kadib madii laga helay nin dhalinyaro baa iga helay ninka dhalinyarada markuu helayna xogaa uu iga yaraa maartay iga gaabsaday maadaama anigu aan dareemay inaan askari ahay bastoolad wato waxyaabo kale marka uu iga gaabsaday wuxuu sameeyay mar dambaan adigu la hadlay waxaan ku nin iimaan kala maahay ilaahay nin yaqaan banahay urniyo waxa sameeyay haddaan qabanaa ku imid haddaan qabano ma qabtid hadaad adii kale waad qabtaa marka uu soo kaxay wixii ilaahay ka baqsan intuu gacantaan bidixisa ay soo qabto dhinacan waxa dhinacayga ila jooga sidaad arkaysaan taliya Bashiir Cismaan Cawad oo kamid ah dadka la nool aan idhaahday cudurka HIV/AIDS inta badanna ka wacyi geliya bulshada xanuunka qabtay iyo bulshada kale kuwa dadkaasi oo aan idhaahday la kulma dadka kale takoor kala kulma Bashiir wuxuu ku sugan yahay waddanka Uganda gaar ahaan caasimadan Kampala oo uu yimi arrimo waxbarasho waxaan ka wareysan doonaa waan kala sheekaysan doonaa si kooban tacadiyo iyo takoor uu kala kulmay bulshada Soomaalida ah ee ku nool waddanka Uganda Bashiir soo dhawow ugu horeyn bal safarkaaga Uganda iyo sidoo bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa weeye anigu waxaan soo baxay garow ka soo baxay 30 bisha halkaan inta ka dambeysay halkaan aan joogay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa TV-gan iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto wareysi yar baan yaan dhiibay daraad shalay subax way aad baan malaynayaa aad baa looga falceliyay si wanaagsan baa looga falceliyay waan u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxa kale oo jira arrinta halkaan oo mid waxay ahayd gabar yar oo anigu aan dhalay oo maartay baan soo kaxeeyay oo maartay dhoofitaan u socotay marka arrintii marka halkaan nimid waxa istaagay kaararka qaxootiga waxa soo dhaw istaageen sida darteed anigu waan maartay waxaan sindiray inta kaararka soo baxayaan iska jooga sidaas ay hawshu ku bilaabatay marka haddaan sii guda galo ma sha Allah waad mahadsantahay walaalkay haddaan sii guda galo waxa weeye anigu marka waxaan xasuustay inaan guri iska degno gabadhana iskool geeyo anigana aan maartay wax iska korsado maadaama hadda aan wax hawl aan ahayn xaqii aan ka imidna shaqo aan hayay jirin kaliya ciidanka booliska waa ka tirsanahay laakiin de wax aan ku ugu hadda ugu maartay ugu qornahay oo gooni ama jiraan kaliya waxaan ahay dadka caadiga oo saraakiisha aan wali shaqada hayn baan kamid ahay ha aatadeede culays badan baan dareemayaa oo maartay de soo kordhay oo ku soo kordhay ummadda Soomaaliyeed oo aad iyo aad u fool xun waan ku celcelinaynaa mar wax kasto dhacaade maadaama aniga aan hore uga hadlay mar labaad aan ka hadlay haddana waan ka hadlayaayo waxa weeye marka aan gurigii aan kireystay yaa waxaan wahay qof ila dega waxaana isma badareensiino de isma lahayn laaxadkaas ay gaari kartaa arrintaas hagaasa ayadoo taas taagan tahay baadana waxa dhacday lacag baan bixiyay iskool baan tagay aniga gabadha waa tagnay labadeedo lacagta waa nagala qaaday lacag gaaraysa $60 baa nagala qaaday qofkii $30 macal fariisinta macal waxeedo dhan hada $100 bay isku ahayd qofkiiba 100 macal lacagtaana 100 kun lacagtaana marka ha ahaatadeede waxa dhacday anigu waxaan sameeyay
maalintii iyada ahayd gabadha markii gashay iskoolka bilowday aniguna waxaan berri soo noqon waqtigii wuu ku dhaafay aad gelle qolada la gelle way ku dhaaftay marka berridii intaan waqtigeedii la gaar waqti leela balab intaan la gaarin baa nin yimid oday ay soo wacay wixii noo imo waan is aragnay wuxuu yidhi niyo arrintan waxa weeye nin caana tahay HIV la nool niyo anagu ardada inaan kala carartaan ka baqaynaa Soomaali waa taqaanaa adu waxyaabo badan ka hadlay wuxuu gurigaaga ayaan kugu barayaa gurigaagaan kugu barayaa anigu marka wax uleys uma arag laakiin de waxaan isiri waa takoor hortii marka goobta waxbarashada tagtay Soomaali baa iska leh ha laakiin dad madowga waa dhigaan waxaan ku doortay waana Soomaalida dhexdeeda maadaama wadanka aan si fiican u kala aqoon laakiin meel aniga gurigay ku dhaweeyay marka waxa dhacday waxa hawsha kale oo aan arkay waxay ahayd ninkan wuxuu yiri walaalow aniga maamulan meeshan ka ahay waxaan rabaa dadkii kale oo meesha lahaa iyo ama ila lahaa inuu yiraan jeclahay ilaha wixii ma aqaan laakiin wuxuu yiri waa inaan waxaan rabaa adiga anaga gooni ku baray balana ku qaad inaan ku baro laakiin arrintaas waa qoladii haddaan wada fariisnay waa ka soo horjeesteen ma yahay waxba hay barin baan ku yiri lacagteedii soo celi waxaan diidanahay dadka xanuunka la nool oo de fuquuqaas halkaas ka bilowdaa moogtay fuquuqa anu sidaan u arko marka waa diiday lacagteeda baan ka qaatay waan ka tagay waxba culays uma arag meel kale aad galaysaa dhib ma leh Soomaaliya ay joogaan haday doonto anigu luqadda iyo waxaan rabay inaan maartay inta sanadka ka dhiman oo kale inaan iska sii joogo awal fasaxaygu wuxuu ahaa 2 bilood meelahaas marka tadeeda waxa la yaabay TikTok marka maalin la wax u soo galiya ama laba maalin markaan joogo ama maalin la u soo galiya ama laba maalin markaan joogo maalin soo galiya TikTok marka intii in la dadka dadweynaha la gaaro gaarsiin wiilkii marka ii qabaan inay TikTok mobilkayga duubaya wuxuu yiri niyo ana arrin baan ka qarinayay meeshii cuntada waxa dhacday dadka inay saxan ku qaataan qaarna imaan waayaanba baraxdaniyo ana waa arkay raggii meeshii aan ku arkay maagi hore imaan jiray ma arag qaar baa baca ku qaata qaar baa saayela arrintii aad iyo aad gabadha maxay ku tiri gabadha waxay tiri haddii Bashiir iyo dadka kale keligii hadduu soo haray keligiisa cuntada cunay waa u karanaya marka waa gabar maskiina caruur haysata hooyada xanuunsan haysata walaalkeedo dhuliyaal oo aan kicin oo la qaadayo haysata ayada teeda u yaaban haddana iimaanka inta la eg bay leedahay waxna way dareemaysaa oo in badan bay waxay joogtay Nairobi ilaa halkaas marka waan u mahad celinaya horta gabadha markaas waan u mahad celinaya aad baan u maasantay hadda talafteedana wali waa cuntada waa ka cunaa laakiin saa uma tagtaba marka sababta aan saa ugu tagtay maxay tahay aniga ayada igama iga kaxayn laakiin ana ka tagay waxaan uga tagay waxa way kuwii markaas lahaa kursiga ku fariistay iyo waxyaabaha maartay weelku wax ku cunaya iyo shaah cabaya naaftay in lagu kala qaado oo haystay ayaa iribal ogaba dhaxbax gabadha sidayna meesha uga xirmay xayalada wixii biilkay gabadha meesha keli jirtay anigu ma awoodo moogta marka isaan u fahmay waxaad ka wadaa maqaayada marka timaado aad istiraado cunto cun dadku inay ka fogaadaan oo kale bulshada macaamiisha maya igama fogaanayaan laakiin way imaanba marka hore weelku ma keensanayaan way ku qaadanayaan waxay ku qaadanayaan weel bay la ku qaadanayaan sababtuna waa Bashiir baa meesha wax ka cunaa hada waa markaan imid bay hawsha bilaabatay marka way iska cadahay moogtay marka gabadhana su'aalaha markaas dad kale anu waxa kulli kale oo la sheegay inay kuraasta ku fariisato ma laga qaadayaa iyo dadku wacyigelinta inay yar tahay oo wax ma garanaysaa lamana yaabaniyo waxaan oo la siyaabanay intaan hadlaynay dadaan arag baa jiro inta badan TikTok ay qayb waxay ugu soo qorayaan commentiga niyahow ninka muxuu qabaa ninka muxuu ka hadlayaa muxuu qabaa su'aalaha la weydiinay kamid su'aalo badan baa la weydiinay oo aniga marka dib igu soo noqon inkastoo dadkii aad u badan oo 100,000 dad ka badan baa uma TikTok ay daawaday marka dadkii commentiga waxay wada qorayaan marka ama wada akhrin kara moogta intii aan ka aqriyay baan arkay dad badan oo mar su'aalaha soo celcelinaya marka anigu waxaan qabaa cudurka HIV/AIDS waxaana qaaday ilaa iyo hadda waxa weeye 2016 waa hadda ka horna waan ka hadlay haddana waan ka hadlay waan ku celinayaa waxaan si guud qisada xanuunkaaga marka adoo inoo soo koobayaan walaalo horta xanuunkayga waa wax mar walba media haya laakiin dadka in la baraarujiyo dad badan oo aan arag baa jira oo wax badan aan ogeyn laakiin anigu waxa weeye waxaan aadna iska guursado oo guurkiisa badan yahay oo waxaan waxba danayn dhagta ka maqlan marka dhaka maqalkaas waxay keenay inaan maartay gabar xanuunka la nool guursado ayaduna ay qarisay sida darteed dabadeedna ay dhacday in maartay markii 4 bilood aan qabay bishii afraad dhexdeeda xanuunka iga soo baxay oo laakiin waxaan dareemay xanuunka aduu 2 bilood iyo bar markaan qabay horta xanuunka uu soo qabtay waan dareemay laakiin bisha kale dheeriga ah oo ku jirta ilaa intaas waa xanuunsanaa caadi baan u xanuunsanaa marka dadka waxaan ku oran jiray xanuun baa haya xanuunka hayana ma garanayo waxaa yeelay markaan baaritaan aado xanuunna kala laga qaado xanuunna kale dhan waa laga helaa tifo burseel wax walba malaria gas wax wixii laga baaro waa laga helaa
waxa keenayana xanuunkan wuxuu casumaa xanuunada kale wixii jirkaaga ku jiro casumaa oo soo saara asagoo dilaa ma aha oo macnaha hadda kelmadaha media kale waxaan ka codsanayaa inay oran xanuunka dilaaga dadka inay niyadda ka dilin waxay dadka inay xogaan nolosh wala iska jecel yahay dadka inay niyadda anigu ma kala jecel mar walba dil baan ku xukumanay laakiin waxaan leeyahay dadka dilaaga ha laga daay arigan dilaaga ha laga joojiyo marka xanuunka dilaa ma aha xanuunka dilaa ma ahan laakiin wuxuu casumaa xanuunada kale buu casumaa asagu wuxuu la diraa jirka maxaan ku radaa waxa la yiraahdo isheeg difaac la diraa marka walaalayaal marka waxaan anigu saasaan ku qaaday xanuunkan marka sidee uga falcelisay markii aad ogaatay in qofta aad qabto ama xaaskaagu ay xanuunka ku qarisay horta waxa weeye iyada afkeeda iga sheegtay inaan macnaha waxay tiri xogaa aan iyadoo dhaqdhaqaaq sameynayso anoo markaa soo xanuunsaday baan arkay waxaan ku rugmaa gurigaada joogtay waxaan hadallaan ku yiri habeen madow ay guriga ka guurtay dabadeedna subaxdii markaan wacay oo gurigii oo cidla aan imid ayaa waxay tiri waad dhimanaysaa xanuunkaas waxa weeye anigu waxa weeye inta aan kula rabay waad gaartay waxa weeye xanuun baa wax noocaas oo tiro badan oo aad u tiro badan xanuunna may sheegin waxay tiri waa sumaysanta waad dhimanaysaa ereyadaas ay isticmaashay marka ereyada markay isticmaashay anigu marka ma fahmin waxaan u qaatay in waxyaabo kale ay jiraan oo amni xumo xaggeeda ah baan u baqay markaa uma baqin markaas macnaha meesha heerka waxaan u hadlay waxaa ka mid ah aqoon darrada iga haysatay bahalka marka waxaa dhacday waxaan idhi nin ila socday oo magacaabi cadceed leeyahay oday nin wanaagsan ah ayaa waxay warnay amay AIDS qabtay anigu HIV AIDS ma kala naqaan mogta waxa AIDS kan dhagta ka maqli jirnay mogta marka amay AIDS qabtay saaniyo xanuun u eg baa haya sidii la sheegay xanuun baa iska kahay warkeeda waa sax adoo maalintii waa iska joogay maalintii dambe waxaan tagay isbitaalka markaan tagayna baaritaan waxaan sameeyay ma garanaysaa HIV-ga oo waxaan ku hormaray meesha mashiinka caadiga oo dadweynaha iska baaran mana aqoon meesha HIV-ga marka kadib haddii laga helay nin dhalinyaro baa iga helay ninka dhalinyarada markuu helayna xogaa uu iga yaraa maartay iga gaabsaday maadaama anigu aan dareemay inaan askari ahay bastoolad wato waxyaabo kale marka wuu iga gaabsaday wuxuu sameeyay mar dambaan adigu la hadlay waxaan ku nin iimaan kala maahay ilaahay nin yaqaan banahay warniyo waxa samaysaa haddaan qabo anaa kuu imide haddaan qabano ma qabtid be haddii kalena waad qabtaa dhe marka wuu soo kaxeeyey wuxuu ilaahay ka baqsaan intuu gacantaan bidixeesaa iisoo qabto dhinacaan iga maray oo meesha wuxuu iisoo kaxeeyey HIV anigu markaa ma aqoon wuxuu yidhi niyo ilaahay maaragtay waxaan keena warta waa noo dambaysee ma positive aan naga samey positive uu sheegayaa laakiin been inuu sheegayaa laga yaabaa biyo macnaha aad buu idishinay nin dhalinyaro aad u yarna uu ahaa oo dee qolada maaragtay joogta meesha ahaa wuxuu geeyey markaas meeshii ma garanaysaa baarista 3 tig baa lagu baaray 3 waxay sheegeen positive inaan ahay markaasna gabadhaas bishaas dhamaadka ah markaas ba 4 wax intaan qabay wax u badan ma soo haysay maya 4 bilood waxaan uurna ma lahayn waxaan ma lahayn marka ilaahay cilmigiisa iyo arintaas saas ku dhacday gabadhaasna kulli anigu horta waxa soo celcelinta keenayo dadka dadweynaha inay fahmaan baan rabaa waxa weeye ayada maaha inaan ku xumaynayo iyada maaha anigu waan cafiyay ilaahay dartiisa aan u cafiyay ilaahay qafur raxiimka cirka dhulka dhisay dartiisa aan u cafiyay laakiin waxaan ugu celcelinayaa Soomaali inay wax fahmaan oo aniga waxaan jeclahay dhalinyarada soo kacaysa kuwa hadda kacay iyo kuwa soo kici doonaba inay waxaanay inaan gaarsiin heerka maanta aniga dalka hadda aan joogo ka joogo inaan gaarin inaan gaarin ayaan ka dagaalamaya dad islaam aan nahay waa sax laakiin ogaada dadka islaamka xaqaladaad baa ka dhaca marka waxa xanuunada marka ugu badan oo u hadlay waxa kamid ah wali ma arag wasiir ka hadlaya ma arag wasiir ka hadlaya oo caadi uga hadlayo la HIV waxa lagu kala qaadaa saasay tahay ama wasiir caafimaad ama waxa lamid ah waxa lagu kala qaadaa waxa barnaamij HIV ka hadlaya anu ma arag meel shira mid yimid waan arkay waxa kale oo jira madaxweyne ka hadlaya madaxweynaha dawladda Puntland baan u maleynayaa mar anigu darajada uu siinayo kaliya inuu ka hadlay madaxweynayaasha aragtay oo tirada badan oo noo jooga dalka Soomaaliya mid ka hadlay kama ma arag